السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتين كسر هذا القناة كان فضلنا هدي أنا وعصبت سبسكرايب إنه هدا هرنو لجوجتنا لايك تشير تكومنتيga waa inoo dhiirigelin. maanta waxaan ka hadli doonaa waxyaabo aad ugu muhiimsan dhanka gabdhaha. maasha Allah ma ka cabanaysaa gacmihii oo ku madoobaada, ma ka cabanaysaa maxay ahayd farahaada inay madmadow galeen oo gamcahaada dhan ay bedelmeen. haddaynu nahay gabdho waxaan qabanaa howlaha guriga sida dhar dhaqistoo kale, alaab dhaqistoo kale, waana waxyaabaha inta badan gacmaha iyo faraha madoobeeya. sida halkan uga jeedno waxaa inoo yaala baking soda, sidoo kale waxaa inoo taala liimo dhanaan iyo grisliin. marka maxay inoo tirayaan waxaani waa wax dabiiciya maasha Allah, tijaabadeedana la arkay, maxay ahayd horena loo soo tijaabiyey. sidoo kale waxaad uga maarmaysaa kareemooyinka inta badan lacagaha faraha badan aan ka bixino, waa uga maarmaynaa insha Allahu tacaala. haddaba waxaa soo qaadanaysaa weel yar ayaa soo qaadanaysa ay qaado, waxaa ku shubanaysaa baking soda 2 qaando camad ama 3 qaando, adiga intaa samaysanaysa ay ku xiran tahay. sidoo kale waxaa ku daraysaa grisliinka markaa ku darto sidoo kale waxaad ku miiraysaa liimo dhanaanta. haddii aad wax badan samaysanayso hal xabo liimo dhanaan ayaa ku miiranaysaa, haddaa wax yar samaysanaysana jeex ayaa kugu filan. marka intaas ayaa isku miiraysa, isku hagaajinaysa, waa isku labaysaa, wax kale ku dari maysid, biyo iyo waxba ku dari maysid. intaas ayaa isku walaaqaysaa ama isku daraysaa, si wacan ayaa u walaaqaysaa. kadib weel ayaa ku shubanaysaa. marka every time aad firaaq ka hesho gacmahaada mari, siiba waxaad aad ugu badisaa meelaha madmadowga ah. resultigeeda insha Allahu tacaala waad arki doontaa. adiguna noqo qof dadaal badan oo jecel inay ka miro dhaliso waxyaabaha maxay ahayd bilowday. inta badan waxaanu aragnaa waxyaabo ayaa bilaabaysaa 2 maalin 3 maalin markaa wado waxaa dhahaysaa waxba kama dareemin, waxna kama faa'iidin, iga dhig halkaa. maya, semberi wax walba wixii ku wanaagsanaadaan joogteynta. inta badanna waa idin sheegaa gabdho, marka 3dan shay haddaa isku qasato meel aad dhigato waxyar ka bacdiba adiga firaaqa markaa hesho meel iska fadhisaba marto. sidoo kalena aad ugu rug meelaha madmadowga ah u badi, waa arkaysaa insha Allah natiijadeeda adigoona lacag badan kasoo bixinin. waa wax iska easy ah, guryahana laga helaayo, lacag fara badanna aanan kaaga bixin, gacmahaadana kugu qurux badnaadeen, kugu cadaadeen, softina kuu noqdeen. sidoo kale talo, guryaha markaa nadiifinaysaan ama aad dharka dhaqaysaan ama alaabta aad dhaqaysaan waxaad xirataan gloves. inta badan waxyaabahaas oomada iyo waxyaabaha shaambada iyo gacmaha adkeeya kuna dheela. marka soo tijaabiye gabdho, waxyaabo fara badan oo faa'iidaan waa idin hayaa.